madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo istiraahad Muqdisho ku qabtay ayaa wuxuu ka warbixiyay socdaalkii oo ku maray deegaanada Puntland iyo Galmudug. Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa shacabka u soo banaan baxay kaga mahadceliyay qaabkii uu soo dhaweeyeen. Sidoo kale wuxuu sheegay madaxweynuhu in deegaanada Puntland oo horumar ku soo arkay isla markaana oo dhiirigelinayo deegaanada Galmudug ayaa wuxuu sheegay in deegaano ay kamid yihiin Xeraale iyo Cabudwaaq iyo deegaano kale ay ka socdaan dib u heshiintii oo markii hore u tagay deegaanadaasi. wuxuu sheegay madaxweynuhu in mashruucyo dhowr ah oo soo dhagax dhigay gaar ahaan isbitaallo, iskuulo iyo waliba wadooyin laami la saarayo. ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya ayaa wuxuu sheegay in dekedda Hobyo la soo dhagax dhigay isla markaana la furi doono. waxaan soo dhagax dhignay mashruucyo ay kamid yihiin isbitaallo, iskuulo iyo xabsiyo runtiina dadku waxay u bisil yihiin inay la shaqeeyaan dawladooda ee gacan siiyaan. kow gacanta ay siinayna waxa ugu horeeya xagga amniga inay gacan ka siiyaan oo qolooyinkan dhibka nagu hayo oo ummadda leynaya ay gacan naga siiyaan dhanka amniga. ganacsatada Soomaaliyeed ayuu madaxweynuhu ugu baaqay inay maalgeliyaan isla markaana ay ka qayb qaataan dib u dhiska mashruucyadii madaxweynuhu uu ka soo dhagax dhigay deegaanadii oo safar ku tagay. waxaan rabaa marka inaan baaq u jeediyo dadka ganacsatada Soomaaliyeed inay hawshan qayb ka qaataan bacdama dawladda ay curdun tahay in ay qayb ka qaataan maalgelinta iyo dib u dhiska inta aan soo sheegay inay qayb ka qaataan dadka diaspora naftigooda inay qayb ka qaataan iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay dib u dhiska dalkooda ay runtii gacan ka geystaan hadduu eebba yiraahdo. madaxweynaha Soomaaliya ayaa wuxuu sheegay in guddi kormeera mashaariicda oo soo dhagax dhigay oo dhawaan magacaabi doono isla markaana guddigaasi ay ka shaqeyn doonaan dardargelinta mashruucyadaasi. waxaan magacaabeynaa maalmaha soo socda hadduu eebba yiraahdo guddi dabagal ku sameeya mashaariicda aan soo ballan qaadnay dhismahooda si aan ula soconno waxa dhaqan galay iyo waxaan dhaqan gelin. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Honkabel TV magaalada Muqdisho.